Waqtiga waa nimco. Waqtigaaga 24 saac oo maalintii aad haystid sidee uga faa'iidaystaa? Maxaad ku qabataa oo muhiim ku ah adduun iyo aakhiro? Haddaba qaar ka mid ah ardaydayda oo ii sheeg wax baro hooyooyin u badan, dumar la qabo, carruur leh u badan ayaa waxaa dhowr jeer weydiiyey in ay soo qoraan maadaama luqadda ay baranayeen in ay kasoo sheekeeyaan ama ay soo qoraan qaab warbixin camal ah maalintoodii waxay qabteen ama dhowr beri ka hor waxyaabay ay qabteen rutiinkooda waxyaabahaas. Then waxaa ii soo baxday in ardaydaas oo dumarka ah waxa ugu muhiimsan oo ay qabtaan inay tahay inay cunto kariyaan, cunaan, ilmaha siiyaan, inay TV fiirsadaan, telefoon fiirsadaan, asin 24 saac oo ay haystaan in wax muhiim oo la taaban kara lagu sameeyo. Then su'aalo fara badan aan weydiiyey, waxaan ku yiraahday maanta maxaa cusub oo baratay ama maxaa cusub oo samaysay. Then they will tell me, waxay ugu dhahayaan akuna wax cusub oo la bartay ma jirto, waa soo kacay just the same routine, the same thing oo maalin walba la sameeyo. Arrintaas aad ii dhibtay sababtoo ah qofka bini'aadanka ah waxaa waa xayawaan maahan, xayawaanaadkaan la xisaabinaynin ama caqli ilaahay garaad siinin oo wax iska cunaan duurka oo iska joogo, marna way seexdaan, marna waxbay cunaan oo wixii ay cuni lahaayeen bay raadsadaan, marna dee waa hurdaan oo ayaga hadda ilaahay suu anaga noo karaameeyey ama caqliguna siiyey ma lahan, waa xayawaan lamana xisaabinayo. laakiin anaga bini'aadan aan nahay, ilaah baana karaameeyey, caqli buuna siiyey, dee caqligeenana inay isticmaalnaan. Si kasta hooyooyinka ugu garaabayo oo ama u mashquul badan reerkii ilmihii wixii ku mashquulsan, haddana waxaa qasab ah ama waajib ah inay waqti u helaan si ay wax naftooda adduun iyo aakhiro anfacaya ugu sameeyaan oo horumar leh. maalin walba in meeshaada joogto waa laga qurux badan yahay. Midda kale dumarka oo dhan ma wada mashquulsana, dumar waxaa jiraan wareega. anaga hadda markii hooyooyinkaas kale casharada aan siinayo oo guryahooda ugu tago, waxaa jira dumar kale oo guryahoodii ireerahoodii inta soo dayaceen ama kasoo tageen la jooga, dumarkaas wax baranayo oo u sheekeynayo ama muddada inta casharka u socdo sugayaan si markii hadhow casharadaas ay dhammaysteen ay hadal sheekadooda usii wataan. qaar fariisanay saacad 2 saacadood casharka socdo way sugayaan, maamooyinka kale oo casharada qaadanaya sugayaan. So that time oo adiga aad baalayacniga ama qof kale aad gurigiisa ku joogtid wax badan oo